الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan ka hadlay mar hore arrimaha keenaya saboolnimada waxaana iri islaamka marka la fiiriyo laba qodob baa u sabab ah ummad inay ama bulsho sabool inay noqoto sida hadda caalamku isu kala qaybiyo caalamka hodanka iyo caalamka saboolka saboolnimada waxa u sababa islaamka xaqiisa marka aan fiirino kow dadku khayraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ee dhir dabiiciga ah ee dhulka ilaahay geliyey ee badda iyo beriga iyo beeraha iyo khayraadka inaanay ka faa'iidaysan ama ka shaqaysan ama si wanaagsan u maamulan waa qodobka koowaad qodobka labaad oo keenaya saboolnimadana waa cadaalad darrada bulsho markay ku faafto cadaalad darro waxaa ku faafaya dulmi eex musuq maasuq nidaam xumo maamul xumo waxaasoo dhan baa ku baahaya xoolihiina inay markaa ku ururaan dad yar intii kaleeto oo badnaydna ay waxba weydo oo sabool ay noqoto labadaas sababood ayaa u sababa maxaa marka xal islaamku keenaya shareecada islaamka culimadii ugu horreysay ee wax ka aliftay fikirka iqtisaadiga la yidhaahdo ama economiga ama dhaqaalaha sida loo horumariyo ama bulshadu ay ku noqoto bulsho hodana taqriiban culimadii ugu horreysay alifay waxaa ka mid ah alimaam abu yuusuf alqaadi yacquub ibn ibraahim baa la yidhahda magaciisa casrigii cabaasiyiinta ay weliba xoogga badnaayeen haruun rashiid amiir almu'miniin uu ahaa ee waqtigaas uu joogay ayuu alifay kitaabkiisa la yidhaahdo alkharaaj kitaabka la yidhahdo alkharaaj wuxuu kaga hadlayey dhaqaalaha iyo ummadda iyo dakhliga dowladda iyo meelaha uu ka imanayo iyo sida loo maamulayo marka la isku soo ururiyo fikirka imaam abu yuusuf kitaabkiisaas alkharaaj wuxuu ku qotomay 3 arrimood qodobka koowaad waxa weeye in cadaalad la helo cadaalad iyo qof walba xaqiisii inuu heli karo bulshadaas taasna waxaa ka mas-uula amiir almu'miniinka oo markaa kitaabka isaga uu qoray iyo dowladda iyo dadka xilka haya iyo maamulka haya labo arrinka labaad in la dhiirigeliyo mulkiyadda ama lahaanshaha gaarka ah yacni ganacsiga gaarka ah waxa adduunku hadda u yaqaano private sector ama privatization ay dowladuhu hadda sameeyaan shirkadihii ay dowladuhu lahaayeen ayaa la wareejinaya waxaa loo wareejinayaa shacabku inuu yeesho maxaa dhacay saasay ku dhaqaalo badan tahay ku horumar badan tahay ku faa'iido badan tahay marka alimaam abu yuusuf wuxuu leeyahay mulkiyadda khaaska ah iyo dhaqaalaha iyo dadka ganacsigooda in xor laga dhigo dadku ha kala faa'iidaan ha kala shaqaystaan qof waxa iibiyo qof waxa sameeyo qof waxa ka kirayo qof marka arrintaas ganacsiga gaarka ahna in la dhiirigeliyo qodobka saddexaad oo kitaabkiisa ku soo ururaya waxa weeye dowladdu inay si cadaalada u maamusho oo nidaamkii u samayso oo dadka kala hagto oo dhiirigeliso wax soo saarka iyo suuqgeynta iyo ilaalinta iyo wixii iyagu ku xadgudbaya oo ama ribo ama musuq maasuq ama maxaan kuu sheegaa dhibaatooyin ama qishi ah sidii nebigu alayhi salatu wasallam suuqyada uu mari jiray oo uu fiirin jiray man ghashana falaysa minna uu dhihi jiray inay waxa ka ilaaliso dhinaca kalena nidaamka u samayso oo wixii la xadeynayo xadeyso wixii la furayo furto nidaamyadii u samayso sidii dadku u shaqaysan lahaayeen u kala shaqaysan lahaayeen wax u soo saari lahaayeen iyadoo ay kor joogtayso saddexdaa qodob haddii la helo ummadaasu saboolnimo kuma jirayso khayraadkiina way ka faa'iidaysanaysaa si cadaalad ahna ummaddii waa loogu maamulaya waa loogu qaybinaya qof walba xaqiisii gurigiisu ku helayaa shaqadiisu ku helayaa meeshuu ka shaqaysto ku helayaa xaqiisii oo cadaalad baa jiraysa qodobka saddexaadna nidaam maamula baa jiraya oo dowladnimo ah haddii saddexdaa la helo ummad kastaa way ka bixi kartaa saboolnimada kumayna jiri karto ilaahayna subxaanahu wa tacaala fikirka islaamiga marka aan eegno dadka wuxuu ku dhiirigelinayaa inay hodan noqdaan taasna insha allahu tacala qodobka damaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala intaasaan idinkaga tego asalaamu calaykum waraxmatullahi